dagaal ayaa dhex maray ciidanka dalalka Itoobiya iyo Suudaan kaasi oo ka dhacay xuduudda labada dal waxaana uu sababay dhimashada 21 askari iyo 30 dhaawac oo kamid ah askarta Suudaan kadib markii ay isku dayeen inay gaadiid hooba u gudbiyaan xuduudda Itoobiya sida ay ku waramayso warbaahinta dhanka Addis labada dhinac faahfaahin dheeriya kama bixin hase yeeshee warbaahinta Khartoum waxa sheegtay in dagaalka ay qayb ka noqdeen militariga Itoobiya ماليشيا أمحارة أو كسوغان حدود إثيوبيا iyo Suudaan 17 kilomitir oo kamid ah gudaha Suudaan ayaa dagaalka la isla galay sida ay ku warantay warbaahinta Khartoum hase yeeshee lama hayo cadeymo sheegashooyinkooda ah Abiy waxa uu ku sugan yahay jiida hore ee xogaga militarigu ay joogaan sidoo kale Abiy waxa uu wadaa qorshe TPLF looga takhalusayo waxaana uu maamulada federaalka ku amray in la keeno dhammaan ciidanka qaranka si kooxda juntaaga looga takhaluso Abiy hadda waxa uu dabada ka riixaya guluf lagu qaadayo ciidanka juntaaga amba TPLF jarmaadka iyo qaracanka Abiy waa mid keentay inuu Abiy soo laba celiyo kelmadda dalka lama gelin doono dawlad ku meel gaadha Itoobiya way guuleysanaysaa kuwa ka soo horjeedana waxay hoos iman doonaan sharciga waxa xusin mudan in Suudaan ay garab siinayso xogaga TPLF ee ku hareeraysan ciidanka militariga Abiy waxa uu mar walba leeyahay Itoobiya way guuleysanaysaa kuwa cadawgeedana way ka guuleysan doontaa Abiy ayaa wafdi u soo diray Somaliland sida uu sheegay Mustafa Cagjar oo ah madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar waxa uu sheegay in fariin uu ka sido ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Mustafa Cagjar sidoo kale waxa intaasi uu raaciyay in aanan u socon ayuu yiri hawlgal la xiriira taageerada militariga Itoobiya ay u baahan tahay madaxweyne Biixi ayaa sidoo kale madaxtooyada waxa uu ku qaabilay Mustafa Cagjar oo ah madaxweynaha deegaanka imaanka Mustafa Cagjar ee Somaliland ayay dadku shaki badan galinayaan